Kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha Ilkay Gundogan oo fariin u diray kooxaha isaga xiiseynaya. Lionel Messi oo lagu xiray madaarka dalka Shiinaha. Arsenal oo rajo laga siiyay tartanka ay ugu jirta saxiixa Ilkay Gundogan. Christopher Nkunku oo ka hadlay mustaqbalkiisa iyo wararka lala xiriirinayo kooxda Chelsea. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan ayaa fariin u diray kooxaha xiiseynaya saxiixiisa kadib finalka tartanka Champions League. Gundogan ayaa kooxdiisa ku hogaamiyay koobkii saddexaad ee xilli ciyaareedkan kadib markii ay ku garaaceen kooxda Inter Milan tartanka Champions League. Mustaqbalka Ilkay Gundogan ayaa ah hadalhaynta ugu weyneyd bilihii ugu dambeeyay iyadoo lala xiriirinayo kooxo badan oo reer Yurub ah. Kooxaha Arsenal, Barcelona, Borussia iyo weliba kooxaha Sacuudiga ayaa dhammaantood xiiso u qaba saxiixa xidigan reer Germany inta lagu guuleysto suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Sidoo kale Manchester City ayaa dooneysa inay sii haysato xidigan iyadoo tababaraha kooxda uu doonayo in uu kasii qayb ahaado kooxdiisa Itixaad ku ciyaarta. Gundogan ayaa ciyaarta kadib u sheegay Fabrizio Romano in aan weli go'aan ka gaarin mustaqbalkiisa kooxda. Lionel Messi oo lagu xiray madaarka dalka Shiinaha. Messi wuxuu haystaa labada baasaboor Argentine iyo Isbaanishka waxaana uu Shiinaha ugu safray kan Isbaanishka. Muwaadiniinta Isbaanishka ayaana fiisa la'aan ku geli karin dalka Shiinaha laakiin waxay fiisa la'aan ay ku tagi karaan dalka Taiwan. Messi ayaa u qaatay in Taiwan ka mid tahay dalka Shiinaha waxaana uu ku galay fiisa la'aan. Caqabada luqadda ayaa ku adkaysay Messi inuu si fiican wax ugu sharxo ciidanka socdaalka ee dalka Shiinaha. Taasi ayaa keentay in ciidamada socdaalka dalka Shiinaha ay xiraan Messi ka hor inta aanan wax walba loo hagaajin oo fiisaha dalkaasi aan loogu dhufan. Christopher Nkunku oo ka hadlay mustaqbalkiisa iyo wararka lala xiriirinayo kooxda Chelsea. Christopher Nkunku ayaa ka hadlaya wararka ku biirista kooxda Chelsea halka Wesley Fofana uu ku dhiirigelinayo inuu ku biiro kooxda. Nkunku ayaa macsalaameyn kheyr leh loo sameeyay RB Leipzig isaga oo isku diyaarinaya inuu dhaqaaqo garoonka Stamford Bridge. Chelsea ayaa bixisay lacagta lagu burburin karo heshiiska xidigan laakiin weli si rasmi ah looguma dhawaaqin heshiiska. Fofana oo ah daafaca Chelsea ayaa aad u xiiseynaya inuu arko Nkunku oo isku dal yihiin oo ku biiray kooxda ka dhisan galbeedka London. Nkunku ayaa si kastaba ha ahaatee aan ka hadlin mustaqbalkiisa suuqa xagaagan xilli uu ku sugan yahay waajibaadka xulkiisa France waxaana uu doortay inuu shaacin wax xoga. Arsenal oo rajo laga siiyay baacsiga ugu jirta saxiixa Ilkay Gundogan. Pep Mertesacker ayaa aaminsan in Arsenal ay ku jirto meel wanaagsan si ay ula soo wareegto xidiga Ilkay Gundogan. Xidigan 32 sano jirka ayaa door weyn ka qaatay ku guuleysiga Manchester City saddexleyda koob ee taariikhiga ah kadib markii ay kooxda Pep Guardiola ay ku guuleysatay Champions League. Ilkay Gundogan ayaa heshiiska City kula jira dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedka dambe waxaana uu xidiga uu xiiso ka helaya kooxaha Arsenal, Barcelona iyo Borussia Dortmund. City ayaa sidoo kale dooneysa inay sii haysto xidigan iyadoo Guardiola uu u cadeeyay inuu doonayo inuu sii haysto xidigani. Laakiin kabtankii hore kooxda Arsenal Pep Mertesacker oo hadda ah madaxa akademiyadda kooxda ayaa dareensan in Gunners ay fursad fiican u haysato inay la soo saxiixato xidigani. Isagoo la hadlayay ZDF finalkii Champions League, Mertesacker ayaa sheegay inuu dareensan yahay ku guuleysiga City ee saddexleyda koob ay Gundogan ku qancinayso inuu yimaado kooxda Arsenal. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka ciyaaraha. Fadlan haddaad ku cusub tahay like noo saar, subscribe, share gareysay barnaamijkan saxaabo badan u gaaro mahadsanidina.